بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا chapter كوباد دوكسيغ سارة form 1 حسابتا او aan maanta bilaabi doono chapterka ama cutubka koowaad aan bilaabi doono intaanan bilaabin chapterkan cusub qayb yar oo waxaa jirtay oo hordhaca oo aan soo sheegnay qaybtaasoo aad ku soo barateen definition of mathematics, who is the father of mathematics, branches of mathematics. qaybahaasoo dhan aad ku soo aragteen ayaa qaybtii hore oo hordhaca ahayd ee chapterkan ka horeysay aad ku soo aragteen laamihii aad soo dhigateen ee xisaabta loo qeybiyey laamihii ugu waaweynaa ee xisaabta laan ka mid ah ayaan maanta soo qaadanaynaa laantaasna waxay noqonaysaa waa algebra waxaan dhihi doonaa the meaning of algebra ayaan chapterkan koowaad ee form 1ka xisaabta dugsiga sare aan ku qaadan doonaa insha Allah algebra markaan joognay waxaan ku soo sheegnay waa laan xisaabta ka mid ah taasoo ka hadasha tirooyinka xarfaha iyo calaamadaha ka hadasha ayaan ku soo sheegnay is a branch of mathematics dealing with numbers, letters and symbols. saddexdooda ayay ka wada hadashaa marka arithmeticada laga hadlayay definitionkeedana waxaa lagu soo sheegay in ay ka hadasho the four operations under their manipulation afarta operation sida addition, subtraction, multiplication, division iyo ka shaqeyntooda ayaa lagu soo sheegay laakiin qaybtan oo maadaama ay algebra tahay waxaa ku arkaysaa number laba waxaa ku arkaysaa letter saddex waxaa ku arkaysaa symbol saddexdaba way wada kulminaysaa laanta xisaabta ee wada kulminaysa ama laga heli karo number sidoo kale letter laga heli karo sidoo kale laga heli karo symbol calaamad ayaan algebra dhahaynaa marka algebrada definitionkeeda marka aan qeexayno waxaan dhahaynaa definition horena waan ku soo sheegay definitionkan ugu jira oo waxaan leenahay algebra is a branch or line of mathematics oo xisaabta ka mid ah that also deals with ka hadasha numbers tirooyinka as well as sidoo kale letters xarfaha ka hadasha waa laanta kaliya ee ka mid ah xisaabta taasoo ka hadasha tirooyinka iyo xarfaha sidoo kalena waxay ka hadashaa calaamad loo dhaxaysiin doono tirooyinkaasi iyo xarfahaasi loo dhaxaysiin doono sida hadda 3a square minus 5 oo kale saddexda shuruud buu buuxisay oo number waa laga heli karaa letter waa laga heli karaa sida hadda letterkan iyo qaybahan soo socda aad arki doonto symbol no meesha uu imaanaa balasa imaan kara minusa imaan kara timesa imaan kara divide waa imaan kara intaba waa laga heli karaa marka algebrada marka aan ka hadlayno qaybtii hore ee arithmeticada haddaan wax yar dib ugu noqono xisaabta arithmeticada waa xisaabta ku darta ka jarta ku dhufashada isku qaybinta aan ku soo sheegnay haddii la dhaho 4 plus 4 plus 4 waxay la mid tahay 12 oo waxa la dhihi jiray 4 plus 4 8 8 plus 4 12 ayay ahayd waxaana loo qori karay short form hab gaaban ayaa loo qori karay oo meeshii la dhihi lahaa afar lagu dar 4 plus 4 plus 4 kala la dhihi lahaa 12 waxaa la dhihi karaa 4 waxay soo noqotay 3 times and 4 na waa kana waxaa la dhihi karaa 3 times 4 oo macnaheedu laga wado 3 meelood oo min 4 3 meelood oo min 4 macnaheedu waa 3 times 4 waxay la mid tahay 12 waa long form haddii loo qoro oo la isugu daro nambarada haddii short formna loo qoro sida ay noqon lahayd algebrada ayadana waa la mid oo numberska iyo letterska waa la isugu dari karaa sida arithmeticada numberskeeda iyo letterskeeda la isugu dari jiro oo kale ayaa ayadana la isugu dari karaa waa habkaas wuxuu ah kii arithmeticada kii algebrada marka wuxuu noqonayaa tusaale ahaan haddii aan soo qaadano 3 variables ayaan soo qaadanaynaa sida hadda a square plus a square plus a square waa 3a oo ay u dhaxayso calaamada balaaska ay u dhaxayso marka aan rabno inaan
samkooda sameyno waxaan sameynaynaa saddexda variable ama saddexda xaraf letter maadaama ay isku mid yihiin waxaan ka soo qaadanaynaa hal xaraf oo kaliya 1a ayaa saddexda a laga soo qaatay kadibna waxaa la isku daray coefficientskooda horgalayaashooda ayaa la isku daray a square kan horgalaheeda 1 u qarsoon a square kan 1 u qarsoon a square kan 1 u qarsoon 1 hadii 1 loo geeyo 2 hadii 1 loo geeyana 3 waaye saddexda a oo square ka ahna hal xabaa laga soo qaatay waxaas waxa ku baran doontaa marka aljabrada la joogo tiro meel iska taala hadii aanan horgalaheeda lagu sheegin ama aanan lagu muujinin horgalaheeda waxa u qarsoon 1 ayaa u qarsoon calaamadeedana hadii aanan lagu muujinin waxa ay tahay waxa u qarsoon balaasa u qarsoon sida hadda eedan saddexdan a horgalayaashooda ma lagu muujinin laakiin waxa u qarsoon waa wax la og yahay kan horgaliisa wana u qarsoon kan wana u qarsoon kan wana u qarsoon marka saddexda wan ee la isku soo daray waa wixii ayaga u qarsoona hadii horgalaha wan uu yahay lama qoro hadii laakiin uu ka badan yahay oo kale 2 ama 3 ama wax lamid ah uu noqdo waa la qoraa calaamadana hadda u soo laabano aljabrada marka la joogo letterska meesha ku qoran kan ugu horeeya hadii aanan lagu sheegin calaamada uu wato calaamad u qarsoon ayaa jirto calaamada u qarsoon waxay noqonaysaa balaas sida hadda a square kan oo kale calaamadeeda laguma muujin laakiin calaamada meesha u qarsoon waxay tahay balaas waaye balaas hadii uu horgala tira variable ah oo noqdo ama constant uu noqdo ma la muujiyo laakiin hadii dhaxda uu ku jiro waa la muujiyaa hadii minus uu madan lahaa a square kan oo kale minus kaasi lama qari lahayn maxaa yeelay minuska waa deenna ma qarsoomayso laakiin balaaska waa wax qarsoomi kara intaasna waa ogaanaysaa hadii xaraf meel yaala aan lagu sheegin calaamada u qarsoon calaamada u wato hadii aan lagu sheegin calaamada u qarsoon waa balaas hadii horgaliisa aan lagu sheegin oo aan lagu muujinin horgaliisa wana u qarsoon intaas waa ogaanaysaa waa marka la joogo in algebra marka la joogo waxaan soo qaadanaynaa haddana expression kaas waxa lagu barayaa qaybaha soo socda sida coefficient variable index iyo constant term ama absolute value ayaa lagu barayaa tusaale waxaan soo qaadanay 3a square minus 5 ayaan soo qaadanay aljabrada marka la joogo variable ka xarafka meesha yaala magacuu leeyahay tirada horgalaha u ah magacay leedahay waxa ku dul qoran oo jibaarka ah magacay leedahay ama magacuu leeyahay jibaarku tirada iskeedu u istaagan ayadana magac kale oo u gaar ah ayay leedahay aljabrada marka aan joogno xaraf meel ku qoran tirada horgalaha u ah waxa loo yaqaanaa coefficient horgale ayaa la dhahaa xaraf meel ku qoran tirada horgalaha u ah sida hadda xarafkan waa a square horgalihiisa waa 3 daasi waxa loo yaqaanaa coefficient macnaheedu af Soomaali ahaan horgale waaye oo waxaan leenahay 3 is coefficient of a square saddexdan waxay horgalo u tahay a square ay horgalo u tahay waa xarafka aljabrada marka la joogo magac gaar ah ayuu leeyahay sida hadda this variable ama this letter xarafkan waxaan leenahay oo a-da ah waa variable doorsoome ama unknown wax aan la aqoonin waayo oo hadhow hadii la shaqeeyo waxa la soo heli doonaa qiimaha uu xarafkaasi u taagan yahay ayaa la soo helayaa marka maadaama waxa soo baxaya aan la aqoon waxa lagu magacaabay unknown wax aan la aqoon ama variable doorsoome ayaa lagu magacaabaa aljabrada marka aan joogno xarafka maxaa loo yaqaan hadii lagu dhaho waa inaad dhihi kartaa variable ama unknown ayaa loo yaqaanaa xarafka hadii tiro lagu jibaaro tirada ku jibaaran sida hadda 2dan oo kale waxa loo yaqaanaa index jibaar ama waxa la dhahaa exponent jibaar ayaa la dhahaa xarafka tirada ku dul qoran waxaan dhahaynaa index ama exponent markaan aljabrada joogno isma bedelin kaasi tirada iskeed u istaagan oo aanan wax xaraf ah la soconin oo iskeed u istaagan maxaa loo yaqaanaa sida hadda 5kan oo kale wax xaraf ah ma wadato iskeed ay u taagan tahay ayadana ma waxaan dhahaynaa sida 3 oo kale waa coefficient ma dhahaynaa maya
waxaan ku magacaabaynaa ama aan siinaynaa magacan waxaan leenahay constant term ayaan leenahay waa tibix ma doorsoomo ah ama waxaan leenahay waa absolute value waa qiimo sugan waaye ayaan ku magacaabaynaa tirada iskeedu istaagan waa constant term tibix ma doorsoomo ah ama absolute term ayaan ku magacaabaynaa ayadana waa qaybtaasi waa qayb muhiim ah oo la rabo inaad xifdiso waa coefficient variable ama unknown index ama exponent constant ama absolute term waxa baranaysaa sidoo kale qaybtan hordhaca ah aan ku baranaynaa wax loo yaqaano polynomials ayaan ku baranaynaa oo macnaheedu af Soomaali ahaan yahay tibxaalayaal ayaan ku baranaynaa waa polynomials waay polynomialsku waa maxay hadaba ayagu waxaan u qaybinaynaa qaybahan soo socdo sida monomial hal tibix binomial laba tibix trinomial saddex tibix tetranomial afar tibix wixii ka badan ama trinomial ka badan waxaan leenahay polynomial tibxaalayaal ayaan dhahnaa waayahay monomial maxaa la yiraahdaa algebrada marka aan joogno xaraf iskiis u istaagan hadaa aragto waxaan ku magacaabaynaa horgalaha wato ama jibaar ha wato ama yuusan wadanin hadii iskii uu istaagan yahay waxaan ku magacaabaynaa monomial hal tibix mono macnaheedu waxa laga wadaa one ayaa laga wadaa iyalkaasna waxa waaye waa tibixdii ay ku tusinaysa waa hal tibix waa marka monomialka sidoo kale wuxuu noqon karaa xarfo badan oo isku dhufsan oo horgale watana uu noqon karaa sida hadda waxa isku dhacsan x kan iyo y dana isku dhacsan waxa horgale u sii ah 7 ayaa coefficient u sii ah waxaan dhihi karnaa ayadana maadaama calaamad plus iyo minus aysan u dhaxayn dhamaantood ay is wada wataan waxaan dhahaynaa monomial monomial sidoo kale waxaan dhihi karnaa a b c d f oo isku wada dhufsan dhamaantood wax calaamado u dhaxaysa ma leh horgalaha u qarsoon ama coefficientiga u qarsoonna 1 waaye then waxaan leenahay a b c d f oo isku dhufsan oo wada jira waxaan dhahaynaa waa monomial hal tibix ayaan dhahaynaa binomial ayaa ku xiga oo laba tibix ah by macnaheedu waxa laga wadaa 2 ayaa laga wadaa laba binomial laba tibixu waa marka laba monomial loo dhaxaysiyo calaamada pluska ama minuska marka loo dhaxaysiyo waxa la soo qaatay x clear waxa waaye monomial waa hal tibix waa y clear hadii la soo qaatana waa monomial waa hal tibix kale waa x iyo y hadii plus aan u dhaxaysiyo waxay noqonaysaa binomial laba tibix ay noqonaysaa waxaan soo qaatay hadana 8x oo kale waa monomial 7 clearna waxa waaye waa monomial hadii labadooda aan u dhaxaysiyo calaamad plus ama minus midkood aan u dhaxaysiyo waxay noqonaysaa binomial laba tibix ayaa ay noqonaysaa trinomial saddex tibix waa marka saddex monomial calaamadaha pluska iyo minuska loo kala dhaxaysiyo ama plus loo wada dhaxaysiyo dhamaantood ama minus loo wada dhaxaysiyo waxaan ku magacaabaynaa trinomial saddex tibix sida waxaan soo qaadanay x square x iyo 5 ayaan soo qaadanay x square iyo x iyo 5 na waxa loo kala dhaxaysiyay labadan minus loo dhaxaysiyay labadana plus loo dhaxaysiyay marka saddexdooda oo wada jira maadaama saddex xaba ay yihiin waxaan ku magacaabaynaa trinomial saddex tibix trydaas waxay u taagan tahay saddex ay u taagan tahay wuxuu soo qaatay hadana a plus b plus c a e b e c oo plus u dhaxeeyo waxaan dhahaynaa ayadana maadaama saddex tibix ay tahay the first term the second term the third term saddex tibix ay yihiin waxaan ku magacaabaynaa trinomial saddex tibix waa laakiin hadii plus kaas laga tiro oo ay isku dhaxsan yihiin saddexdoodaba waxaan dhihi lahayn waa monomial hal tibix ayaan dhihi lahayn wixii inta ka badan marka waxaan ku magacaabnay polynomials tibxaalayaal ayaan ku magacaabnay sida afar tibix shan tibix iyo wixii ka sii badan waxaan ku magacaabnay polynomials tibxaalayaal ayaan ku magacaabnay sida waxaan soo qaadanay 5f plus g minus 3h minus 7k plus l ayaa la soo qaatay halkan how many terms are here 1 2 3 4 5 shan tibxood ayaa hadda halkan ah maadaama shan tibix ay yihiin wixii saddex ka badan ba waxaan ku magacaabnay iyo wixii ka sii badan ba polynomials tibxaalayaal ayaan ku magacaabnay hadaba
chapter 1 waa cutubka koowaad. The meaning macnaha of algebra ee algebrada waa qaybihii ugu horeeyay ee hordhaca ahaa ayuu ku barayaa halkan hadaba. Algebrada waa maxay qeex hadii la dhaho? is a branch waa line of mathematics ee xisaabta ka mid ah that taasoo deals with ka hadasha numbers tirooyinka as well as sidoo kale ka hadasha letters xarfaha ka hadasha. In arithmeticada 4 plus 4 plus 4 can be written waxaa loo qori karaa shortly si gaaban as 3 times 4 saddex meelood oo min afar ah equals 12. Similarly si lamid ah in algebrada a square plus a square plus a square equals 3a square. saddexda monomial ee meesha ku qoran coefficientskooda ayaa la isku daray then waxaan loo qoray 3a square. The expression qoraalka 3a square minus 5 mid kasta wuxuu yahay ayuu ku sheegayaa. The 3 saddexda is said to be waxaa la oran karaa coefficient horgale ayaa la oran karaa of a square and it tells us waxayna inoo sheegtaa how many a squares are added. inta a square ee la isku daray ay inoo sheegaysaa. waa 3dan waxay inoo sheegaysaa inta a square ee la isku daray. a square kan waxaa la isku daray 3 times la isku daray. waa 1 kale waa 1 plus 1 2 plus 1 3 a square. in 3 times la isku daray mar walba coefficientigu wuxuu ku sheegaa inta variable-kaaga ama xarafkaaga la isku soo daray ayuu ku sheegaa. a keliyana is said to be waxaa la dhihi karaa waa xarafka variable doorsoome ama unknown wax aan la aqoon ayaa lagu magacaabi karaa. 2 labada jibaarka ahna is said to be waxaa la oran karaa index waa jibaar ama exponent waa jibaar. 5 tirada iskeedu u istaagana is said to be waxaa la oran karaa constant ma doorsoome ama absolute term tibix sugan. Polynomials tibxaalayaasha. Algebraic expression qoraalka algebra consisting of ka kooban 1 term hal tibix. 1 termka wuxuu noqon karaa 1 variable only, 1 constant ama variable iyo constant wada socda intaba wuu noqon karaa. 1 term hal tibix is called ayaa waxaa lagu magacaabaa monomial hal tibix. e.g. tusaale ahaan 4a b square c power 4 d intaasoo wada socota waa monomial waay. maxaa yeelay wax plus minus uma dhexeeyo dhammaantood way isku wada dhacsan yihiin. 7xy ayadana waa monomial waa coefficient oo 7 ah iyo xy oo isku dhacsan. k square keliyana waxaan leenahay monomial waa ayadana waa 1 variable keliya oo indexkiisa wata etc wixii lamid ah. Algebraic expression qoraalka algebra consisting of ka kooban 2 terms laba tibix is called waxaa lagu magacaabaa binomial laba tibix ayaa la dhahaa. waa sida hadii laba variable laba xaraf hadii loo dhaxaysiyo calaamada pluska ama xarfo badan oo isku dhacsan iyo xarfo badan oo kale oo isku dhacsan oo coefficientskooda wata hadii calaamada plus iyo minus loo dhaxaysiyo labadaasi qaybood ee isku dhacsan qaybta kale ay la jirto waxaan leenahay binomial laba tibix ayaan leenahay. tusaale wuxuu noo soo qaatay x iyo y oo plus loo dhaxaysiyo. x-ka waa monomial, y-dana waa monomial, labadooda hadii plus u dhaxeeyo waxay noqonayaan binomial. wuxuu soo qaatay 7abc iyo 14klm plus u dhaxeeyo waxaan leenahay binomial laba tibix. 8x minus 7 ayuu soo qaatay 8x oo gaar ah iyo 7 oo calaamada minuska ay u dhaxayso ayadana waxaan leenahay binomial laba tibix kala waa. Algebraic expression qoraalka algebra consisting of ka kooban 3 terms saddex tibix is called waxaa lagu magacaabaa trinomial saddex tibix ayaa lagu magacaabaa. sida x square oo tibixda koowaad ah minus x oo tibixda labaad ah iyo plus 5 oo tibixda saddexaad ah. minus iyo plus ana u dhaxeeyo waxaan leenahay trinomial saddex tibix. haddana a b c soo qaatay a minus b minus c maadaama saddex bay yihiin trinomial oo dhahay waa saddex tibix. ax square plus 2ax square minus 5ax square waa saddex tibxood
plus iyo minus u dhaxeeyo aydan waxaan dhahaynaa waa trinomial waa saddex tibix algebraic expression qoraalka algebra ee consisting of ka kooban many terms tibxa badan ka kooban iskoolada waxaa lagu magacaabaa polynomial tibxaale ayaa la dhahaa wuxuu soo qaatay 5f plus g minus 3h minus 7k plus l maadaama ay badan yihiin wuxuu ku magacaabay polynomial tibxaale ayuu ku magacaabay etc wixii la mid ah waa degree waxaa la dhahaa heerka jibaarka ayaa loo yaqaanaa waxaad qaybtan ku baranaysaa monomial degreegiisa iyo polynomial degreegiisa ayaa ku baranaya degreegana waxaa laga wadaa sida aan ku sheegay heerka jibaarka tibxaalaha ayaa laga wadaa hal tibixa heerka jibaarkiisu waa the sum of the exponents of its unknowns waa wadarta ama isku dardaridda xarfaha hal tibxaalahaasi jibaarada uu wato oo la isku dardaray tusaale waxaan soo qaadanay this monomial hal tibxaalaha ayaan soo qaadanay horgelihiisu waa 2 3 variables wata waa x cubed y square iyo z y muxuu noqonayaa degreegiisa jibaarkiisa hadii lagu dhaho layligana waa ku arki doontaa waa iska dhaafaysaa horta kaas coefficientska xarfaha meesha ku qoran jibaaradooda bes ayaa la isku dardaraa x kan jibaarkiisu waa cubed y dan jibaarkeedu waa squared z na jibaarkeeda hadda ma la muujin algebrada marka la joogo xaraf meel ku qoran hadaa aragto oo xarafkaasi aan lagu sheegin coefficientgiisa wuxuu yahay iyo exponentgiisa wuxuu yahay aan lagu sheegin waxaad u qaadanaysaa labadaba 1 coefficientga hadii aan lagu sheegin 1 u qarsoon ee ogsoonow hadii aan exponentga lagu sheeginna 1 u qarsoon ayadana waad ogsoonaanaysaa kan hadda maadaama wax exponent uusan wadan 1 u qarsoon tiriidan hadii 2 lagu daro waa 5 5 hadii 1 kan loo geeyo 6 ayuu noqonayaa xarfaha meesha yaala ayaan jibaaradooda isku dardarna kaliya waxa ka soo baxo ayaa degreega this monomial noqonayo hadii polynomial lagu siiyo sida tusaalahan waxa lagu siiyo binomial trinomial tetranomial pentanomial iyo polynomial wax la mid ah lagu siiyo wixii monomial ka soo haro ha noqdaan binomial ama trinomial ama wax ka sii badan baa noqdaan marka aad rabto inaad soo saarato degreegooda ama heerka jibaarkooda marka aad rabto inaad soo saarato waxaad degreeyadooda u soo heshaa polynomialka lagu siiyay degreeyadiisa fiiri mid kasta degreegiisa inta uu noqonayo kadibna jawaabta waxa ku noqonayo inta degree ee meesha taala degreega ugu badan ayaa ku noqonayo polynomialkaasi degreegiisa hadda meeshan waxaan haysanaa polynomial kan waliba waa trinomial waa saddex tibxaalo waa muxuu noqonayaa degreegiisa heerka jibaarkiisa hadii la dhaho ayagoo dhan isku ma dardarayo waxaan u xisaabinayaa marka hore mid kadibna waxaan ka soo qaadanaa midka ugu badan hadii aan hadda midkan fiiriyo a-dan waxay wadataa 2 b-danna 1 u qarsoon 2 iyo 1 haddaan isku daro waa 3 ayuu noqon lahaa degreegeeda midkan asna muxuu noqon lahaa degreegiisa 2dan iyo 3dan haddii la isku daro 5 ayuu noqon lahaa midka ugu dambeeya asna degreegiisa muxuu noqon lahaa x kan iyo y-dan labadaba waxa u qarsoon 1 iyo 1 u qarsoon haddii la isku daro degreegooda wuxuu noqon lahaa 2 polynomialkan saddexdan teeram ama tibix ayuu ka kooban yahay saddexdan tibix waxa ka soo qaadanaysa midka ugu degreega badan hadda saddexdood hadii la fiiro 5 ugu badan marka the degree of this polynomial waxaan dhahaynaa waa 5 waaye midka ugu badan ayaa laga soo qaadanaa exercise marka aragtana su'aal saan oo kale saasa aga shaqeyn doonta insha Allah hadii lagu siiyo tiro constant ah oo madoorsoomo ah lagu siiyo waa tirada iskeed u istaagan lagu dhaho sheeg degreegeeda muxuu noqonaa tiro caadi oo meel ku qoran algebrada marka la joogo tiro caadi oo meel ku qoran oo constant ah hadii lagu dhaho degreegeeda ama heerka jibaarkeeda muxuu noqonaa hadii lagu dhaho waxa leedahay waa 0 laakiin in arithmeticada marka la joogo tiro caadi meel iska taalo hadii lagu dhaho sheeg degreegeeda muxuu noqonaa ama exponentigeeda wana u qarsoonaa la dhihi lahaa laakiin algebrada marka la joogo tiro constant oo meel ku qoran degreegeeda muxuu noqonaa hadii lagu dhaho waa bilcagsi
waxay noqonaysaa zero ayay noqonaysaa has no degree ayaa la dhahaa macnaha degreegooda wuxuu noqonaa zero ayuu noqonaa waa three constant any number 2 digit ha noqoto 3 digit waxay doontaa noqoto haddii lagu siiyo oo heerka jibaarkeeda sheeg lagu dhaho zero ayaa dhihi doontaa zero haddii lagu siiyana maxaa dhihi lahayd arithmeticada marka la joogo zero degreegeeda sheeg haddii lagu dhaho ama aan lagu sheegin wana u qarsoonaa laakiin algebrada marka la joogo tiro zero ah muxuu noqonayaa degreegeeda haddii lagu dhaho waxaa leedahay has no degree algebrada zero wax jibaar ah ma lahan has no degree waa tirooyinka kale zero marka laga reebo ama minus wataan ama plus wataan waxaa la dhahaa zero waa degreegooda variable meel iska yaala ama xaraf meel iska yaalana degreegiis haddii aan lagu muujinin waxa u qarsoon 1 ayaa u qarsoon waxa ogaanaysaa hadaba polynomialka waxaa loo qori karaa labadan midkooda loo qori karaa labahaba loo qori karaa waa ascending order iyo descending order ayaa loo qori karaa ascending order waa marka polynomialka tibxaalaha laga bilaabo tiro constant ah ama jibaarka ugu hoose marka laga bilaabo oo jibaarka ku xiga lagu xijiyo jibaarka ku sii xiga lagu xijiyo ilaa jibaarka ugu weyn laga gaarayo tusaale wuxuu soo qaatay ascending order waxa la macnaheedu waa habka koridda ayaa la dhahaa waa ascendi macnaheedu waxa laga wadaa rise up kor u kicid oo kale ayaa laga wadaa waxaan soo qaadanay this polynomial sida loo qoray marka bal fiiri waa constant degreegeeda waa 0 waa variable laguma sheegin exponentigiisa wana u qarsoon kan waa 2 kana waa 3 waxay u qoran tahay sida hadda sida jaranjarado kale ay u qoran tahay degree marba marka ka dambayso wuu sii koraa 0 uu ka kacay 1 uu noqday 2 uu noqday 3 uu noqday waa rise up waaye waa habkaas marka loo qoro oo polynomialka laga bilaabo tibixda ugu jibaarka yar ilaa kan ugu weyn loo qoro habkaas waxa loo yaqaan ascending order descending order waa bilcagsi waa marka fall down la dhahaa waaye macnaha oo laga bilaabo exponentiga ama degreega ugu badan laga bilaabo hoos loo sii socdo degree ka yar ilaa degreega ugu hooseeyo oo tiro constant ama variable oo exponentiga 1 u yahay laga gaarayo waa midkan oo la dabagediyo waa descending waa fall down hoos u dhicid oo kale waa habka digida ayaa loo yaqaan waa sida x cubed x square x iyo 8 degreegan waa 3 kan waa 2 kan wana u qarsoon kana waxa waaye 0 habkaas marka loo qoro waxa loo yaqaan descending order ayaa loo yaqaan marka saan loo qorana ascending order ayaa loo yaqaan waa like terms iyo unlike terms waa tibxo isku mid ah iyo tibxo aanan isku mid ahayn term tibixdu waxa laga wadaa 2 letters ama 2 variables ama 1 variable ama 3 variables iyo wixii la mid ah ayaa laga wadaa like termska tibxaha isku midka ah waxa laga wadaa xarfaha isku midka ah unlike terms tibxaha aanan isku midka ahayn macnaheedu waxa laga wadaa xarfaha aanan isku midka ahayn algebrada marka la joogo waxa la isku dari karo ama la kala jari karo waa tibxaha isku midka ah ee loo yaqaano like termska laakiin mana la isku dari karo mana la kala jari karo unlike termska tibxaha aan isku midka ahayn tusaale haddaan soo qaadano waxaad tagtay meel lagu gado fruitiska waxaad soo gadatay 4 xabo oo tufaax ah iyo 7 xabo oo tufaax ah meel waxaa ka gadatay 4 meel kala tagtay dana 7 ayaa ka gadatay haddii lagu weydiiyo lagu dhaho imisa tufaax ayaad haysataa isla markii waxaad la soo boodi lahayd waxaan haystaa 11 xabo oo tufaax ah ayaan haystaa appleska iyo 4 apples iyo 7 apples halkan ku qoran marka waxa la sameeyay 4 ayaa la soo qaatay appleska waxa loo soo gaabiyay a small hadana 7 ayaa la soo qaatay appleska ayadana waxa loo soo gaabiyay a marka 4 iyo 7 kan maadaama xarfa isku mid ah ay wada wataan kana a u wato kana a u wato waxa la sameeyay labada a hal ayaa laga soo qaatay labada horgale ama labada coefficient caadi la isugu daray 4 hadii 7 loo geeyo waa 11 apples waay isla adigii meel ayaa tagtay waxaad gadatay 3 bananas 3 xabo tufaaxa meel kale waxaad gadatay 4 lemons 4 xabo oo lima ah ayaa gadatay
haddii lagu dhaho maxaad haysataa ma dhihi kartid waxaan haystaa labadan inaad isku darto 7 xabo oo bananas ayaan haystaa ama lemons aan haystaa ma dhihi kartid. maxay la sababta u dhihi weyso waxay tahay waxa aad haysato waa wax aanan isku mid ahayn oo kala duwan. 3 waa bananas, 4na waa lemons waay. marka waxaan dhilay 3 waxaan haystaa 3 bananas and 4 lemons. 3da soo qaad, bananaska b kaliya loo soo gaabiyay, 4 haddana soo qaado, lemonskana waxaa loo soo gaabiyay l ayaa loo soo gaabiyay. marka aljabrada marka aan joogno waxaa isku dari karta kaliya waa xarfaha isku midka ah like termska ama aad kala jari karto. laakiin unlike termska xarfaha aanan isku midka ahayn sida x y ama a e b ama k e l oo kale xarfo kala duwan haddii plus ama minus loo dhexeysiyo lagu dhaho soo kala jar ama isku soo dar mana isku darsami karaan mana kala jarmi karaan weligood saasay ahaanayaan. buugga wuxuu soo qaadanaa marka examples wuxuu dhahaa simplify fududay y minus 2y. waxa horta la joogo xagee la joogaa waxa la joogaa algebra ayaa la joogaa. in algebra la joogo maxaa inoo cadeynayo ko numbers waa la haystaa, 2 letters waa la haystaa, 3 symbol waa la haystaa. saddexdii shuruudood ee algebrada laga rabay saddexdaba way jiraan. marka aad rabto inaad furfurto waxaad isweydiisaa marka hore termskan to ma like terms ba mas waa unlike terms aad isweydiinay. haddaa isweydiiso jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa like terms. maxaa yeelay xarfuhu waa isku mid waa y xarafkaana waa y kan degreegiisa waa 1 kana degreegiisa 1y. marka waa haddii minus u dhaxay caadi waa u kala jari kartaa. labada y waxaa samaynaysaa hal y ka soo qaadanaya coefficientskooda u soo noqo. hore waxaan kugu sheegay sharxaadda haddaa aragto term ama tibix meel iska taalo oo calaamadda ay wadato aanan lagu sheegin calaamadda u qarsoon balaasaa u qarsoon waay. marka maadaama balaas u qarsoon yahay y-dan iyo y-dan hal y ka soo qaado. sharcigu wuxuu yahay calaamaduhu haddii ay isku mid noqdaan waa la isku daraa. sida 2 balaas oo kale waa la isku daraa, 2 minus oo kale waa la isku daraa. macnaha waa la isku daraa waxaa laga wadaa waxa la isku daraayo waa coefficientska. unlike signskana waa la kala jaraa. macnaheedu haddii 2 constanti 2 tiro ay kala calaamad noqdaan sida +2 iyo -5 oo kale waa la kala jaraa. jawaabtana waxaa la siiyaa labada tiro tirada weyn calaamadeeda ayaa la siiyaa. hadda 6kan wuxuu wataa plus 2dana waxay wadataa minus. plus iyo minus calaamaduhu waa calaamado kala duwan oo unlike signs ah waaye aan isku mid. then labadaas tiro waa in la kala jaraa. tirada weyn ayaa tan yar laga jaraa. 6kan haddii 2 laga jaro 4 waaye 4 soo qor. waxa soo baxo waxaa la siiyaa labada tiro tirada weyn calaamadeeda. tirada weyn plus ay wadataa then 4 waxaa la siinaa plus. plusna haddii tiro uu horgalo lama qoro waa la qariyaa. jawaabtu waxay noqonaysaa 4y ayay noqonaysaa. example 2 ayuu noo qoray buugga oo simplify a plus 6b minus 2c plus 4a plus 5c plus 3 ayaa la haystaa. waa polynomial. polynomialkan waxaa la rabaa inaad furfurto oo a b c iyo constantiga ah ka soo saarto. si aad u furfurto marka waxaa samaynaysaa wixii a ah isku garab dhig, wixii b ah isku garab dhig, wixii c isku garab dhig, wixii tiro constant caadi ahna isku garab dhig. saana aga shaqeyna haddaa dhahdo way isku dhex yaacsan yihiin. marka hore waxaa u samaynaysaa arrangement isku aadi. eedan ka bilow alphabetical oo dhan waa loo qoraa. eedan waa soo qaadatay yaa kaloo e wata tana e wadata waa plus 4a. haddana wixii b wata isku garab dhig kana b wata waa plus 6b. yaa kaloo b wata wax kaloo b wato ma hayno. wixii c wata isku garab dhig tana ugu horeyso minus 2c. yaa kaloo c wata waa midaan plus 5cy. wax kaloo caadi ah ma jiraan. then waxaa la soo c d ma jirto ma hayno. wixii tiro constant ah la soo dhiga haddana waa 3dan bisa meesha taala plus 3da sideeda noogu soo dhig. constant kale ma hayno. equal ayaan dhahaynaa. labadan unlike terms labadan a hal a ka soo qaado. wana u qarsoon plus ah kana 4 wataa
1 haddii 4 loo geeyo waa 5 plus 5a plus kana ma la muujinayo. bdan b kale looma hayo sideeda u soo qaado. labadan c hal c ka soo qaado. cdan horgalaheeda waa plus 5 cdan horgalaheeda minus 2 waa ka shaqeynaa ayagana calaamadooda fiiri kan minus wata kan plus wata. haddii ay calaamadooda kala duwan yihiin oo unlike signs ay noqdaan waa inaa soo kala jartaa. tan weyn aad tan yar ka jaree 5 kan 2 haddii laga jaro 3 waaye 3 da soo qor. calaamada aad siinaysa jawaabtana waa labada tiro. tan weyn calaamadeeda plus ay wadataa plus c plus 3 daana sidaa loo soo dhigaa marka waxay noqotay 5a plus 6b plus 3c plus 3 waana unlike terms waayo kuwan mana la isku dari karo mana la kala jari karo. marka hadalka aan noo akhriyo noo fiiriya. degree heerka jibaarka. The degree heerka jibaarka of a monomial ee hal tibix is the sum waa wadarta of the exponents ee jibaarada of its unknowns ee madoorsoomayaasheeda xarfaha laga wadaa. each tusaale ahaan the degree heerka jibaarka 2x cubed y squared iyo z waa monomial is wuxuu noqonaa 6 ayuu noqonaa. The degree heerka jibaarka of a polynomial is waa the greatest degree waa degreega ugu weyn of its variables ee xarfiisa ama unknownskiisa. The degree heerka jibaarka of 3a square b plus 2b square q b q cubed minus 4xy is 5 waxaa laga soo qaatay waa la fiiriyay dhammaantood midka ugu weyn laga soo qaatay sida aan sabuurada saarnay. The degree heerka jibaarka of non-zero constant ma doorsoome aan eber ahayn oo tiro caadi ah laga wadaa wuxuu noqonaa 0 waa 0 and the constant 0 ma doorsoomaha 0 na has no degree wax degree ah ma lahan. Algebraic expressions qoraalada algebra aritan waxaa loo qoraa in eeda midkood descending habka degidda ama ascending ama habka koridda. x cubed minus x square plus x plus 8 habkay u qoran tahay hadda maadaama jibaarka ugu weyn laga bilaabay ilaa kan ugu yar la qoray waa descending order. 8 plus x minus x square plus x cubed plus x power 4 kan kii ugu yaraa laga bilaabay waa 0 1 2 3 4 exponentska then waxaan leenahay ascending order habka degidda ayaa loo qoray waa rise down ama go waxa way rise up ama go up waaye like and unlike terms tibcaha isku midka ah iyo kuwa aanan isku midka ahayn. if haddii 4 apples 4 tufaax and 7 apples iyo 7 tufaax added la isku daro together si wada jir ah the result jawaabta is 11 apples waa 11 tufaax. and in the same way wada la mid ah 4a plus 7a haddii la isku daro waa 4 apples iyo 7 apples laga wadaa waa 11 apples waaye. if haddii 6 apples 6 tufaax and 5 bananas iyo 5 moos are put together la isku daro the result jawaabta cannot be expressed lama qori karo any more simple than habka fudud by saying clear in la dhaho that they are in ay jiraan 6 apples 6 tufaax and 5 bananas iyo 5 moos. in the same way wada la mid ah waxaana loo qoraa loo soo gaabin karaa sidaan 6a oo 6 bananas u taagan iyo 5b oo u taagan 5 bananas u taagan. simplified waa habka ugu fudud loo qori kare 4a and 7a oo applesku u taagan say to be waxaa la oran karaa like terms tibxa isku mid ah and their sum wadartoodu is 11a waa 11a. 6a and 5b are unlike terms waa tibxa aanan isku mid ahayn and their sum wadartoodu is waa 6a iyo 5b waaye waa apples iyo bananas ma isku darsamayaan. in algebrada only clear like terms tibxaha isku midka ah added ayaa la isku daraa ama subtracted la kala jaraa. unlike terms meesha way ka baxayaan. for example tusaale simplify fududay if possible haddii ay suurtagal tahay waana labada aan ka shaqeyna hadda. practice exercise-ka now check your understanding waa 4 su'aal. su'aasha koowaad simplify fududay if possible waa ilaa iyo f ayaa lagu qoray sida loo furfuray anaga aan u furfurno oo kale u furfur. state check the degree heerka jibaarka
of each mid kasta of the following expressions qoraalada soo socdo waa monomial degreegiis muxuu noqonaa waa trinomial ama polynomial degreegiis muxuu noqonaa waa 0 maxay noqonaysaa degreegeeda waa 9 constant degreegeeda muxuu noqonaa sheeg arrange isku hagaaji each mid kasta of the following expressions oo kamid ah qoraalada soo socda as ascending order habka koridda adoo ka bilaabaya jibaarka ugu hooseeya ilaa jibaarka ugu weyn qoraaya soo qor saddexdaas hab arrange isku hagaaji each mid kasta of the following expressions qoraalada soo socda ah descending order jibaarka ugu weyn ka bilaab ilaa jibaarka ugu yar qor lagjarkan intaas ku egyahay lagjarka xiga ila socda mahadsanidin